guddida doorashooyinka ayaa la sheegay inay diideen inay xilka iska casilaan waxaanay si caadi ah oo maalinle ah ay u wataan shaqadoodii. sidaasi waxaa baahisay shabakadda wararka ee Somaliland shabakadan oo soo xiganaysa ilo xogagal ah oo aanay magacaabin ayaa sheegtay in guddida doorashooyinka ee waqtigani ay diideen soo jeedintii guddida dhexdhexaadinta. go-aanka guddida soo saaray oo ahaa in komishanka haatan la kala diro isla markaasna la soo celiyo komishankii hore ee doorashooyinka. waxaa kaloo ay shabakadani sheegtay inaanay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka midkoodna ka howlgelin sidii loo fulin lahaa in komishanka haatan la kala diro kii kalena la soo celiyo. xubnaha guddida doorashooyinka oo wargeyska geeska Afrika isku dayay inuu arrintani wax ka weydiiyo ayaanay u suuragelin. laakiin wararkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay shalay ku eegayd 10kii bisha koowaad ee January oo ah maalintii loo qabtay in madaxweyne bixi ku soo dhameeyo fulinta labadii qodob ee ergada dhexdhexaadintu soo saartay ee ahaa kala dirista guddida iyo soo celinta guddidii hore. mana muuqato wax bidhaan ah oo muujinaya in degdeg loo fulinayo labadaasi qodob.